بسم الله الرحمن الرحيم محمد صالح weeye walaalkiin cajiladan waxay ka mid tahay barnaamijyada hore ballan qaaday qaybo horena aan ka soo hadlay waxaan ugu talagalay inaan la wadaago jaaliyadda Soomaaliyeed especially waalidka qaybtan maantay waxaan ka hadli doonaa tuushinka ama caawinaadda dheeraadka ah carruurta loo diro. I think tuition is key. I think I'm from Asia in a team originally. I don't know. Like in Korea, I guess I know it's the I don't know. Somalia, Marlon. We get the tuition and how we tuition. We get this way. How we ilmihi ila kabo. All logo daro. Waxaan qiyaasaynaa haddaan say tahay whatever I can aan sheego tuition waxaan dhihi lahaa waxa weeye ilmihii oo ogtiin timetable-ada waa isku dhow yihiin qofku science English maths qaadanaya waqti badan ma jiro markuu yimaado guriga galbihi oo kale in loogu daro si fahamkiisu u si ficnaado oo waxaanu fahmin inan laga turxaan bixiyo waxa hadduu markaa wato homework iyo waxyaabo kale laga sii caawiyo intaas way macno ujeedadu waa in koobka inuu bixsano inuu ujeedaan wadanaa waxaa rabnaa ilmahaas inuu maadadaas muddo fiican keeno si fiican u fahmo intaas ujeedadu waa intaas sooma tuushinka ujeedadu waa intaas ugu weyn muxuu ahayey aanu lacagta ku bixinayno waalidka Soomaalida badan waxay xoog saaraan saddex maado iyo xoog saaraan waa science-ka English maths especially maths we like I don't know why aku fiican marka maxaa rabtaa ilmahaagu inuu xisaabta 9 keeno haddaa UK joogto sidoo kale waxaa rabtaa Englishka inuu sidoo kale science sidoo kale yaa rabtaa marka adaa istusay marka leedahay ilaa tuushina la sheego ama yaa tuushin lagu sheegay ama meel baa laga furay ama tuushi fiican baa la sheegay waalidku waxay ku faraxsan yihiin canugaygu inuu tuushin dhigto weeye wiigii saacadii 50 baa bixiya waalidka fiican male waalidu middaa wari ka jira tuushinka markaan ka hadlayo ujeedadu maaha inaan mucaaradayo aan leeyahay tuushka ma fiicna maaha inaan leeyahay yaan la geyn laakiin waxaan diidaya inaan miro ka beerno dhul aan miro ka soo bixi doonin oo maxaa ka mid number 1 horta waxaan aaminaba ariyaa badan I don't know yaa inoo sheegay waalidka Soomaalida waxay ku leeyihiin walaalow bilahan aniga tuushi ma geyn the tuushi faral miya sidiisa waa qasamayna soo iska marito anigu maya waa kaasoo magaalo kale aan kasoo guurayo tuushi sinaaga waxay ku leedahay gabarka Soomaaliya 4 macallin baa ii jooga ha okay ilmihii waxaa la yidhaahdaa student waxa lagu qeexay someone waxna soo barta waxna sii barta fiiri waxna soo barta waxna sii barta guriga kow ilmihii markuu guriga yimi carruurteenu ma fadhiyaan oo ku talgelinba so waxaan aaminsannahay student maxaa la yidhi waxna soo barta waxna sii barta inuu konton baan haysanaa kontonkaa shaqo kumaniba waxaan marka u haysanaa hadduu iskuulka tago tuushinka tago inuu okay ee keenayo suuq keenaya ilmihii dib uguma noqon xishada la soo baray tan kale tuushinka waxaa loogu daraa ilma intuu dadaalayo intii loo dira ka soo baxay baa inta ku adkaata laga kabaa
laakiin ilmo galaaska leeyahay laba ku dar buu soo dhammayn waayay ama shaqadii loo diray 100% ma qaban inaan tuushin u diro additional waa qalad way ku diraya horta ka soo dhax meesha lagu diray horta wixii lagu diray ka soo bax tamarkii su'aalo lagu diray ka jawaab haddaad leedahay ma aqaan waa kiis kale laakiin macalinku wuxuu leeyahay ba ilmaha dhibtiisu ma bahaba tuushin ma haba talent su'aalaha ugu jawaab yaa ka jawaaba galaaska marka anta la taago laakiin effortigi baa ka maqan gurigii fariisan maayo miis ma leh game baa yaal buug ma haysto dib u eegi maayo formulooyinkii dib u qori maayo halku marka maaha halku tuushin maaha markaas halku tuushin maaha ilmuhu waa inuu fariisto kow number 1 galaaska waa inuu macalinka maqlo waa inuu focus waxaa la maankoobi waa inuu communitysi wato wuxuu marka isku dayo oo ku adkaada marka ha you try your best I will help you the rest you try your best I will help you the rest laakiin waa iskoobi garaynaynaa heblaha carruurta tuushin bay aadana waa aad halkaas waa laga soo baxay markii aniga weydiiyaan waalidka soomaalida macallin baa rabnaa ama xisaab baa rabnaa aniga weydiiyaan shan su'aalood baan weydiiyaa waxaan ku dhahaa cunugaaga yaa ku yidhi tuushin buu rabaa maya waa u maleeyey haye cunugaagu yarkee waay ka socod yarteen okay year 6 and the end of year 9 muxuu grade ka watay ma xasuusto set koo fadhiyaa they will tell you higher of foundation whatever okay ma xasuusto what about the end of year 6 3 years ago oh he got more than 100 he was very high oh so he's supposed to be a yeah now adiga macallinkii miyaa kugu yiri cunuga tuushin buu rabaa maya okay so way tuushin u diray marka haddaa cunuga tuushin u dirto waxay la mid tahay qof aan xanuunsanayn baa dhakhtar jifis waxaa kaloo la yidhahdaa qofka dhakhtarka ku jira sanadka oo dhan iyo qofka 6 bilood ku martaga kee caafimaad badan waa caafimaad badan qofka 6 bilood martaga ilmaha tuushin joogta ku jira wuxuu limid yahay la qof dhakhtar joogta ku jira let them revise let them read let them learn study at home qofkii goormuu fikiraya goormuu isagii waxbarashadu qofkay ka soo dhex baxaysaa macalinka xogaa buu ku siinayaa laakiin haddaa ku mashquulayso soo qor the end of the year is 0 that's what happened now this is my advice taladeeda waa tan marka ilmaha parent evening waa dhici karta inaad tiraahdo okay parent evening tegay waxaa lagu yiri ilmahayga waa ka hooseeya sayid horta saddexdaa maadoo la sheegay soomaalidu 3 qaybood bay kaga hooseysaa taa waxay la xiriirtaa arrintaan raban aan sheego ah ka waran tusaale ahaan gurigiina hadda ka soo qaad ilmahaaga waxaa lagu yiri waxuu ku hooseeyaa iskoolka lagu yiri saanta ku hooseeya gurigaaga markii wax ka halaabaan waad wacdo qolada guriga ka shaqeeya ma waxaad oranaysaa gurigii imoo ka shaqeey mise waxaad oranaysaa kushiinka iga jaban meel baa iga habay iga jaban waxaad oran doontaa meel baa iga jaban soo ma meeshii ku sameynaya fi ka qaadaya oo ka tagay aad tiraado gurigii ka shaqeey gurigu fiirfiirinaya wuxuu laga yaabaa inuu ogaado gurigu inuu okay yahay ba boqol buu ku jarjaraynaya ka tagay you don't know أنا توشي كاتي ما قرنا يسوي كل تحته you know why because عراك لا توشي كهذا so ما حد عيسى هذه قبل نص نيسو عرق باكيني عرق وقت ما كانوا معي وأدور العقبة بيس أنا كنت أكون فرحسين هاي هو يا كينتي توشينك هذا واحد أكون فرحسين تاي إن هذا الحق جيسي أنا كان توشين جيسي لكن واحد في رسالة سكول كبون تفيري فيفضوها تريبو تجايا مدرس do you know why وقتي وريفيشي كسمين لها واحد لصلوصو دقي 10 كلا ودرتي وقاركود حتى أنا حسين 10 كودكتون
حساب تايما حساب توافر قيبود number algebra shapes and handling data بوكستو حساب أفرت قيبود عرورة الصومالية iyo caruuraha kale anuga hayba laba qaybood bay ku liitaan hadda meel ku qorto caruurtiina caawa weydiiya haddaanay oran yes ginaha soo saara oo maxay tahay labada qaybood waa algebra iyo shapes iyo quraani kuwana kaliya laakiin haddaynu wax la Soomaali caruurteena algebra qaybta la yiraahdo waa number baa ugu horeeya Somali number ugu horeeya algebra xiga shapes xiga data ugu dambaysa labada cutub oo dhexe buugaagta xisaabta waa labada ugu dibto badan weeye waana labada cunah dibcaha caruurta imtixaanada ka cuna algebrada oo solution-keeda leh Soomaaliya ku soo qaadan iyo shaybiska oo dhan qaabo baan dhigi jirnay inaga mug iyo bed iyo waxaan dhigi jirnay inaga wareeg iyo halkan area iyo volume labada qaybood waliba grade ka leeyihiin haddaad foundation tahay 5 baa ku egtahay waa inaad grade 5 diyaariso iyo 4 5 haddaad higher tahana 7 6 8 waa inaad diyaariso marka soo qaato haddii la yiraahdo soo qaad macallinku dhoo xisaabta macallin أرجعوا كليتها حسابته أفكر له ويدين معلومات وقت ما ينبغي يكون عن مقتضى أوتوماتيك هذا كل شيء يعني ويدينا والجبر يشيء أوكي الجبر يشيء كليتها أنا كذا كريت سيم على جرب فور بيجونا أوكي ما على مركب ما واحد لا ده هبل أو توشين هيستوز بقول عروه هستان كل احترام أو حكدرم واحد عندهم تا توش حساب الربع يركوا يرتين كلهم كذلوا فرسنايا الجبر كل دقن لجرب بري هاف تايم كان امتحان بالجرب الجبر توشي واحد كسعودة جرافيس أما واحد كسعودة إيش واحد كسعودة probability مين موت يو واحد كسعودة معك cumulative علمي وقت الواحد برا الله حقات عندك تاسو معلك ما أوران حمرك التلاقي هالكلام مرك التلاقي هالكلام حتى ليه الله بقى ريموت بقى ربع كائن رعيه مرك كو والده horta ilmaha ha u dirin tuushin haddii aan loo dirin tani muhiim noqon kow labo markaad ogaatay marka baahidii ogaatay baad waxaad ogaatay inay jirto meel tuushin lagu dhigo xisaaba adigu marka xisaab oo dhan ma rabto la soco iyo waqti kaa dhumin yaa waqti lagaaga dhumin macnaha percentages iyo fractions iyo bil soo socota yaa waqti lagaaga dhumin xaalada macalligiisa adiga ninka meesha haystaa aniga أنا أجر 10 وعطب set 2 set 1 target كيسك ما تسكا و 8 بركوية حتى و 4 weakness كان وحواي ما لها لجرب إنه improve قريو و algebra solving quadratic equations يو volumes and the surface area of 3D shapes. Will you do this for me? Don't worry. 50 pounds, 100, whatever. Love no honest. You know, no, I can't. Because I'm a group of them. I'm a job so I'm them. I'm a yes, because now he knows. I think we'll get target can. I'm going to double saddle rubber. مسؤولية ديرها السارية محمد كسحري حسابات ودرع أنا جس كفرن أبنا كم وحنكروا تلاقيها يراها توشنا عام كأ لا سقط تقول لا بقولوا دنيا مجرته يقرأ لا بقولوا دنيا مجرته يكليين أردي درس حتى صوما واسدعقوا higher talented average in the middle, low ability.
dibon ko iyo saddex labada qolada iguma jirto meelaha tuushinada la soo tago waayo kan topset kana challenge heli maayo waxa challenge karaya grade 8 9 baa laga rabaa 6 5 baa lagu wareegaya halkaas waste time all of the low ability kana they cannot understand the waste money and time all of the dhexe okay all of the dhexe okay waa qolo halka wax ka qaadan kara oo sii socon kara ujeedadu maaha inaan dad maagayo oo tuushino dhiga ama dhaqaale ku haysta maaha ujeedadu honesty that's the reality anaa dhiga tuushino xisaab dhigan anaa dhiga dadka Soomaaliyeed runta ogaadana muhiima dantooda muhiima guushooda muhiima shakhsiyaadka iyo magacooda iyo lacagtooda muhiima common interest ka qiimo badan كم حانيري عرور توشن how digging how drill unless important معلنك وجيني سنة وشيك وحربته ساينس كم إذا بيولوجي كل تان عرفتين إنجليش كأيتا كل تان قرياكم أقيان وحي كل تان comprehension كواحد هذا فهم كرشة كوين كقرن إيوه writing skills especially GCSE معلنكو وحبو وحجرة قايل الراعي marka talo si raacinaya groupka low ability iyo groupka higher ka waxaan ku talin lahaa group-yo low ability in loo doono inuu heerka ma gaarin wali ma jirto tuition diga high ability kaliya ma jiro tuition low ability ma jiro as far as I know waxaan ku taliya hadda koor xaafadaha degantiin macallin u yeerta tuushinka duuru macallin ay soo diro walada low ability guys could do grade 4 grade 5 same group they enjoy together group class challenge gana a star challenge you bani that's the point kala haway how do I know isla waxay ku leedahay aniki tuushinka wuxuu igu yiri anugaygu waa grade 9 school كانوا wuxuu joogaa grade 5 waxay leedahay macallinka macallin school ku fiicna telefoonka waxaan ku siinay macallinka tuushinka waxa uu raaxo sheegaa imtixaanka la qaado say 20 su'aalood baa yihiin insha Allah maanta imtixaan baan idhaxgeeyay raalliha 20 su'aalood baa la keenay 20 ka su'aalood 4 jabtar bay ka imanayaan labaatankaas afar qayb waa shan caruurteena marka shantii numberka hadday ka shaqeeyeen boqolkiiba boqol Soomaa shantii daytadana ka shaqeeyeen laakiin labadii dhexo aljabra iyo shaabis ay mid laba ka shaqeeyeen average ka soo cuni mayso hoos dejin mayso laakiin macallinka tuushinka waxaa laga yaabaa inuu jabtar ka mid a jabtaradii imtixaanka ka qaaday numberka ka qaaday oo uu boqolaal isku dhiftay boqolaal isku qaybiyo cunugaas eego tawasax لكن ماشي ميزان كصحة الله وعده واسكول أيام كل التلي واحد كم الوالد كالصومالية كل التلي كم إذا أنا قاعد لحوي مركو دقنا يتوشي أنا قال لك بلام دالو لحوي مركو دقنا 6 weeks دقنا وهذا أكبيسي أنا جي وقت جري ومعنا جي وقت جري هدان وسكول كبوستيف ريبورت كوسودرين أما دبئي سكروا كأن جوج دون سيرتان فالكاسة كوانسة بلك الغورتاس أنكو سعيش لحوي المهد مركو كو ديغانا يتوشين كاس لعكس تبيحي هدي معلنكو آنو كوشاين اسبدل كل يوم واحد برشليسي don't waste your time ويل دلولا بيكوش وينا ويل دلولا أيام بيكوش وينا تنكالي المهنة ما أي نمبرين إنه يرادو هويو أنا جو واحد توشي كلي كبرو ما هو حين يجرب مدعيان
waxaa kaloo yaana idinka ilaawin muhiima waddankan UK examination authorities aa jirta edexam OCR AQA waxaa dhici karta adoo canugaado edexel science diyaarinaya GCSE in guriga macallin tuushi kuu yimaado saacadda afarta ka qaato laakiin muxuu diyaarinayaa AQA waa dhacday ana irum no kadaya maxaa science GCSE xariif baa iska imanaya yes I can teach science GCSE okay waalido halkaa shaqa ku jirta cajiladan please ku celashada marar badan dhageysta please exam school kasta exam authority buu leeyahay haddii kale haddaad exam authority qaldan diyaariso you lost ilmaha waxa ku adag waa in laga caawiyo maha caam in loo diro caruurteenna waa in la baro please tuushin baan ku geyn doonaa oo macallin baan kuu qaban doonaa gabdhaha fiican gabdho way dhahaan hooyo aniga macallinka waxba ka baran maayo ama tuushinka waxba ka baran maayo dad nooti ay yimaadaan caruurteenna waa inaan barno meel tuushin aan geynaya ujeedadan kuu geynayana waa in lagu caawiyo haddii tuushinkaas ku caawin waayo let me know ka waraysta laakiin see what doesn't make sense zero production at the end ku soo celinayaa lacag baad bixisay cunugii waa daalay waqti baa dhumay adigii gaarigii kuma nasan macallinkaas wuu shaqaystay waa runtiis macallinkaas haddaan ma dhahayo macallimiinta tuushinku waa qaldiyi ma dhahayo xaq uma lacagtay qaadanayaan xaq waa u leeyihiin way yimaadeen kalaaskii u dhigay laakiin adaa la rabaa inaad macallinka baahidaada ula tagto haddii baahidaada meesha aan la koofar garayn karina inaad ka tagto eema aniga hagu ixtiraamin ilmahaaga inaad tiraa macallin male ma yaxisho ma jiro macallin this is the reality sasa loo baahan yahay this arrintaa muhiima waalido arrintaa muhiima waxaan marka kusoo gabagabaynaya insha allah waalido caruurtaa la baro inay wax akhristaan waxaa jira bugaag la dalbado la gato la yidhahdo social study skills see wax loo bartaa waxay ka hadlayaan motivationka waxay ka hadlayaan time keepingka waxay ka hadlayaan note takingka ilmuhu inuu skills barto laakiin ilmo sii soo soco quraankaad soo noqo tuushinkaad soo noqo iskoolkaad soo noqo haddaadan wixii ku noqon homework goormaa ka shaqaynaysaa revision goormaa ka shaqaynaysaa macallinka wixii maanta uu soo qoray goormaad ka fiirinaysaa بري هذا 10 كلا كور فولايا بري 10 كلا كور فولايا بري 10 كلا كور فولايا تيشر ما تفهمين الجبر يا هيد مركل لا يدري والد وارين تاس عندي كنا قلنا أرين تاس بعيوب عن تاي مرة بدل كلنا وكالي تو إن شاء الله إنت صار وين كسر جو جبيو لا وحن كرجيني يا إن واحد بدل كفهمتان أرين تان وحرجيني يا إني واحد بدل كبد الشو إن حبك توشينا ده أن واجهنا يو سي أن وجدوا بين محاوية سه ilmaheen uga faa'iideysan karaan additional supportiga la siinayo laakiin waxaan rabaa marka hore ilmaha inaan more independent iyo shaqeeyaan boqolkiiba 80 iyo shaqada qabtaan baan rabaa 20 kalena aan ku darno haddii kaleeto ilmaha saas u koraya hadduu jaamacad soo gaaraya cunug si wada la soo wado hadduu waxbarashadiisa meel gaarmayso intaasaan oran lahaa again waxaan qaldan naftayda sheedan baa shaqo ku leh waxaan wanaajinay ilaahay miisaanka xasanaadka ay ugu daro innagana idinka dhigo ilaahay kuwi ka faa'iideysta ujeedadana waxa inaan kulli wada guulaysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu